waraxmatullah. Marka lagu soo dhawaado channelkayga. So maanta waxaa arkay link maxaa la dhahaa article-kan anoo Facebook iska dhex boodaya waxaa arkay Soomaaliya waxaa la dhahay waa wadanka afraad maxaa la dhahaa dadka ugu wanaagsan markay dad cusub la kulmaan strangers markay la kulmaan dadka macnaheedu dadka kale zaid soo dhaweeya Soomaaliya waa numberka afraad taas macnaheedu waxaa waaye Soomaalida waa dad aad u wanaagsan markii loo fiiriyo dadka strangerska dadka cusub soo dhaqmaan khaasatan Soomaalida ajaanib wadamada shisheeye markaan imaano oo kale ajaanibta iyo dadka cusub zaid u soo dhaweeyna ula dhaqanaa oo midaasna waa mid wanaagsan so wadamada naga horeeya fiirino afar wadan meelahaas number afar ayaa ku jirnaa so saddex wadan naga horeyso numberka koowaad waa Ciraaq saa arkaysaan hoostan 10 number waa kuwan 10 kood number waa kuwan numberka koowaad waxaa waaye Ciraaq numberka labaad waa Libya numberka saddexaad waa Kuwait numberka afraad waa Soomaaliya saa arkaysaan fiiri numberka shanaad waa maxaa la dhahaa United Arab Emirates waxaa waaye Dubai meeqa wadana muslima 6 wadana muslima 6da wadan dadka ugu wanaagsan dadka soo dhaweeya waa 10 wadan 6 ayaa muslima wadan muslima boqolkiiba 90 boqolkiiba 100 boqolkiiba waxa saa arkaysaan newska akhbaaraadka iyo markaa dhageysanaysid maxaa laga sheegay wadamada islaamka islaamka waxa waaye islaamka terrorist waaye Soomaaliya al-shabaab qabta Libya kana ka dhisan qaraxyo Sacuudi Carabiya saan waaye marka newska dhageystid wadan islaam wax positive dhan laga sheegay laakiin marka hadan laga hadlayo dadka ugu wanaagsan waa dad islaam kulligood taas macnaheedu marka waxa waaye newska mar walba dhanka islaamka waxa waaye zaid ayuu wax ugu sheegaa midaasna weligeeda jirtay sababta gaal ma ku jeclaanayo Soomaa laakiin maalmahan newska zaid ayuu waxa waaye propaganda wuxuu wadaa waalan Soomaaliya marka arkaysaan numberka afraad ay ku jirtaa qorshaha kuwaad linkigan aan furno waxa waaye taas ka hadalno laakiin dib ku jiro waxa waaye Soomaaliya dadkiisa ay isnaab dadkii ajaanib si fiican u dhaqanaa dadka dad cusub marka la kulano si fiican u dhaqanaa laakiin dib ku jiro waxa waaye dadkiisa ay isnaab 91 ilaa hadda nacab jira lislaynaya qabyaalad la isku laanayay qabyaaladii yaa dhamaatay shabaab iyo waxa bilaawday balaayo dad Soomaali la laanay so hatta hadii macnaheedu shabaab iyo waxa waxay laanayeen dad ajaanib ahaan leed waxa aan leed laakiin dadka adilayna waa dadkeeni dadka Soomaali islaayna waa dad Soomaali nin Soomaali mar dhow waxa maqlay Soomaali qabyaalada isku dagaalay goboladan so Soomaalida taas waxa macna tahay in dadka ajaanibta si fiican ula dhaqanto laakiin dadkeedii si xun isku dhaqmayaan aan isjecleen midaasna mid maskax qof bilaadan galaysa ma sababtoo ah walaalkaaga aadan jecleen jaceelka kale qof kale oo qabtid it doesn't make sense wax u faa'iido soo kordhinaysa malaha ma dhahay in dadka kale ajaanibta ama dadka kale aan necbaano ina dadka kale jeclaano waa mid wanaagsan laakiin koodii hore nafsadaada inaad ka hormariso wax walba waa muhiim walaalka nafsadiisa wax walba ka hormariso waa muhiim haddii aad gurigaaga ka bilaawin banaanka wax ma soo kordhinayso tusaale ahaan wadankeena aad wax naga soo yaaciyay wadamada shisheeyna keena waa nacab anaga isnacbana maswaabeen so marka aad ayay igu farxisay marka arkay haddana marka gadaal u fikira waxa isdhahay macnaheedu waxa waa content wanaaga igu jira oo macnaheedu zaid igu farxisay Soomaalida la aqoonsanayo article-yada adduunka ee soo kordhinaysa macnaheedu soo galayso number fiican sababtoo ah dagaaladii 91 ilaa hadda wadamadeena ka jiray Soomaaliya soo qof Soomaali ka sheekeynay inuu dagaal wax kaga sheekeeyo bas aan jirto laakiin hadda artaan waxa waaye inaan hadallo wanaagsan soo kordhayo dagaalka sidii hore uu soo yaraanayo qabyaaladii wixii ay dhamaanayso marka waxa filayaa generationkan dhalinyarta hadda soo kobcayso in positive alimadan oo naceebka iska joojino dhaxdeena wanaag ka dhalno sababtoo aad saa arkaysaan wanaagi dadka kale naga dhaxay uu wanaagsan yahay waxa naga dhiman waxa waaye wanaagi dhaxdeena midaasna dhalinyarta ay ka bilaaban kartaa dadkan waaweyn hadda artaan
xilka noo haya ama dadka waaweyn waalidiinta ah waxay kordhin karaan hadeertan waxaa waaye inay dhexdeena wanaag ka dhaliyaan laakiin dadka ku dhaqmi kara waa anaga dhalinyarada sababto anaga wadankan dalkeena dadkeena u maqan inaa micnihi anaga isfahamno wanaag sameyno so video intaas uu ku egyahay waxaa rabay bas inaa intaas yar la wadaago channelka haddaa ku cusub tahay wax la sameeyo waa taqaanaa subscribe asxaabta gaarsi peace out